doorashadii baarlamaanka iyo siyaasadda xisbiyada Norway ayaa xalay lagu kala adkaaday xisbiga bidix uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Jonas Gahr Sture iyo xisbiga shaqaaluhu soo hogaaminayay dalkan 4 sano ee la soo dhaafay ayaa 4 sano hor la noqonaya ra'iisul wasaaraha dalka Norway. Xisbiyada mucaaradka ee dhanka bidix ayaa sidoo kale waxa awood sheegtay xisbiga xagjirka FRB loo yaqaan oo hogaamiso Sylvia Listhaug oo noqonaysa xisbiga labaad. lama oga awood qaybsiga dhexmari doona xisbiyadan kala aragtida duwan. xisbiga shaqaalaha oo kaligood soo hogaaminayay dalkan sanadkii ugu dambeeyay ayaan la ogeyn in awood qaybsiga uu la qaybsanayo xisbiyada kale inuu sii wadi doono awoodan kaligii uu ku haystay dalka sanadkii ugu dambeysay. dhanka kale Soomaalida ayaa la hubaa markii ugu horeysay inay heleen laba xildhibaan Marin Xuseen oo ka tirsaneyd baarlamaanka dalka Norway ayaa difaacatay kursigeeda, halka Hashim Abdi oo 20 jir uu noqday qofkii ugu yaraa ee soo gala baarlamaanka dalka Norway oo ka soo baxay gobolka Oslo. dadka Soomaaliyeed ayaa si aad uga qayb galay doorashada ka socotay dalka Norway, waxaana waqti dambe xalay doorashadii lagu kala guuleystay kadib aan khadka telefoonka kula hadlay xildhibaan Maxamed Camileeti iyo Baashi Muuse labadaba ka tirsan xisbigan ku guuleystay dalka Norway shaqaalaha. aad xasan adiga iyo TV-ga qaranka SNN waa idin salaamay Somali National TV. walaal aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka shakhsi ahaan ka Maxamed Camileeti ahaan iyo xildhibaan ahaan gobolkan Oslo ama guud ahaan doorashada Norway waxaa ku guuleystay xisbiyadan dhanka bidix oo hogaaminaya xisbiga shaqaalaha oo aniga aan ka tirsanahay. waxaana farxad qaas ah oo aad iyo aad u sareysa xaqiiqdii in wiil Soomaaliyeed oo aan ku wada jirnay golaha deegaanka magaalada Fredrikstad uu ku guuleysto xubinimo baarlamaanka asigoo insha Allah taala mid heli doono gobolka aan deganahay Oslo. Camileeti ugu dambeyn waa sidee dareenka dadka shacabka ee degan gobolkan wiilka Soomaaliyeed ka soo baxay? والله guud ahaan ka magaalo ahaan iyo bulsho ahaanba magaaladan Fredrikstad aan deganahay ama gobolkan Oslo deganahay bulshada Soomaaliyeed umaysan kala harin haday noqoto masaajid iyo haday noqoto jaaliyada haday noqoto shacabka caadiga yarkan dhalinyarada aad iyo aad ayaa loo taageeray iyo bulshooyinka Norwegian iyo dadka kale ajaanibta gobolkan degan aad iyo ay u soo dhaweeyeen una la shaqeeyaan waana dareemi kartaa in dhalinyarada oo lambarka 3aad ka soo galay baarlamaanka iyo sheeglistigii baarlamaanka lagu tartamayay yani juhdi inta uu soo bixiyay asigana dadaalkiisa iyo mataqaana fikirkiisa juhdigiisa ayuu meeshaas ku yimid. aad iyo aad ayaan u faraxsanahay xaqiiqdii in wiil Soomaaliyeed oo horumarkan gaaro oo maanta wadanka Norway meesha loogu arriminayay oo mataqaana dhex fadhiyo. insha Allah taala waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda sidoo kale wiil ama dhalinyaro kale Soomaaliyeed gabdhaha inay fursad noocan oo kale ay helaan. أنا كان قيب كان نقلنا أرين كان ديمقراطية ده كان عن دقنا إن قيب كان نقل إن شاء الله. ما سنة عملت؟ رنتي درين كي رنتي وامد عادي لعبي كان رنتي وايو رنتي ددال عادي عادو بدن أيانو قلنا كامبينك ددال كيانو قلنا يجودي كانو قلنا رنتي نتيجة دي سوانو أرقناي. garabka bidix runtii si fiican bay u guuleysteen garabka bidixda ee maaragtay xisbiyada la yiraahdo red green oo macnihiisu xisbiyada maaragtay anti wadaaga ah ee dhinaca anti wadaaga u janjeera iyo xisbiyada dhexdhexaadka ah sida matalan xisbiga cimilada iyo xisbiga kale ee maaragtay xisbiga deegaanka iyo xisbiga kale la yiraahdo centerka ee maaragtay dhexdhexaadka ama dhinaca beeralayda labadaasna way nagu jiraan runtii. marka guul aad iyo aad u qiimo badan bay xasan u maanta ahayd oo aan la taaban karin oo lama filaana. guushu mar waxay ahayd in xisbigayga guuleystay, marna waxay ahayd inaan soo noqonnay mar labaad oo aan awoodii ku adkaysanay inaan sii haysano. runtii xisbigu wuxuu helay 28 ilaa 29 ayuu helay ilaa waxaan reeri doonaa 54 kursi. xisbiyada waxaa lagu kala guuleystaa runtii 85 xisbiga hela 169 xisbi weeye kursi weeye. wixii 85 qoladii hesha ayuunbaa guuleysata. garabka midigtana runtii guuldarro badan baa soo waajaday xisbiga conservative-ka ee maaragtay jamhuuriga oo aad u dhacay oo 14 maaragtay helay iyo xisbi kale oo isaguna khadkiiba ka baxay oo leedahay xisbiga liberaalka ah
kaasina khadkiibu ka baxay marka ayagu sidaasaan dawlad kuma soo dhisi karin marka runtii dareenkaygu waa mid aad iyo aad u sareeya. baashe maxamed muuse siyaasi ka tirsan xisbiga shaqaalaha aad u mahadsan tahay hambalyo baashe. aad iyo aad adiga mudan walaal. xasan saciid raasta raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo.